kulanti waxaan wanaagsan daawadyaal ahaantiin meel wada joogtaan waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha waxaan ku bilaaban doonaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in kooxda Arsenal ay badisay horyaalka sideeda markaasi sii dheereysatay oo halkaasi markaa 6 dhibcood ay ka koreyso kooxaha Manchester City iyo waliba kooxda Liverpool. haddaba kooxda Liverpool waxa laga koreeyaa 7 dhibcood oo qura halka kooxda Manchester City laga koreeyo 6 dhibcood ayadoo sidoo kale inta ay kooxda Arsenal markaasi ay badisay waxayna u muuqataa isbuuca soo socda inay la ciyaareyso kooxda Sunderland oo taana ay u muuqato markaasi inay kooxda Arsenal ay badi karto taasna suuragal ay u noqon kartaa inay kooxda sii dheereysato hoggaanka. haddaba waxa markaasi idin sheegaya haddii ay kooxda Arsenal ay badiso isbuuca soo socda ay ka badisay kooxda Sunderland haddii markaasi City iyo markaa Liverpool midkood lagu dhagana waa horyaalka Arsenal dhinaciisa ayuu markaasi u galban doonaa. haddaba tusaale ahaan markaan siiyo kooxda Arsenal waxa u dhiman kaliya kooxo aad iyo aad u fudud sidoo kale kooxda Arsenal iyo waliba Liverpool iyo City saddexdoodu waxay yihiin kuwa markaas xilligan tartanka kaliya ka dhaxeeya kooxaha kale inta Premier League hadeertan tartanka ku jira sida Manchester United, Chelsea, Tottenham, Big Six-yada isla wada yihiin oo dhan waa kuwa markaasi aanan awood u lahayn xitaa inay markaasi kaalmaha hore ay wax ka qaataan. waxa laga yaabaa dagaalka ka dhaxeeya kooxahaasi dhaxdooda in markaasi ay suuragal u noqon weydo inay ayagu markaasi kaalmaha afraad iyo ay ka qayb qaataan. laakiin waxaan ku hayaa saddexda ugu horeysa inay noqon doonaan Arsenal iyo Chelsea, Arsenal iyo City iyo Liverpool, laakiin ma garan karo kooxda markaasi horyaalka qaadayso oo koowaad iyo labaad iyo saddexaad sidii u kala gali doonaan. laakiin waxaan ogahay un kaliya inay noqon doonaan saddexda tartanka ka dhaxeeya inay yihiin ayaga kaalmaha saddexda hore ugu horeyso saddexdaas kaalmoodna inay ayagu markaasi ay qaadanayaan oo ay ku guuleysan karaan. hadda kaalinta afraadna sidaan u rajaynayna waxa isleeyahay Big Six-yada markii laga soo reebo Manchester United iyo kooxda Chelsea waxaan isleeyahay in markaasi ay kooxda Chelsea soo cariirsan karto kaalinta afraad sababtoo ah waxaan u leeyahay waxay tahay Chelsea way ka awood roon tahay labada kooxood Tottenham iyo Manchester United xilligan lagu jiro. haddii aynan musiibo ku dhicin ciyaartooyda ay haysato waa ka quality badan yihiin ciyaartooyda kooxahaasi. daawade adigu fikirkaaga sida ay kula tahay kaalmaha hore ee Premier League kooxaha geli kara isleedahay iyo kooxda horyaalka qaadi karta fadlan qaybta hoose ee commentiga inoogu soo qor si aan u ogaano fikirkaaga waxa ay noo tahay mid muhiim ah anaga noo ah sababtoo ah waxaan diiradda saaraa mar waliba qaabka iyo waliba afkaarta iyo fikradaha kala duwan ee bulshada ku xiran page-kayga waxa ay markaasi ku soo bandhigaan qaybta araahda ama commentiga. aad baa mahadsantihiin asxaabteeda qiimaha qaayaha mudan wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha ee Saakay. waxa haddii aad ku cusub tahay ka codsanaya inaad page-kayga follow inoo dhahdaan like-ta iyo commentigana ku dadaala fadlan waxaan ka codsanaya like ii saartaan qaybta like-ta iyo follow-ga aad baa ugu liita asxaabteeda qiimaha qaayaha mudan fadlan waxaan ka codsanayaa inaad markaasi i like gareysaan page-ka oo commentigana markaasi aad igu sheegtaan fikirkiina ku saabsan barnaamijka faaqidada ciyaaraha iyo sida aad u aragtaan barnaamijkayga. aad baad mahadsantiin asxaabteeda fadlan haddii aad hore nala joogtana oo saaxiibna la ahayd like-tii commentiga ku dadaal siina share gareeya barnaamijka si uu gaaro asxaab fara badan oo markaasi adiga asxaab kula ah oo Facebook-kaaga ku xiran si markaasi muuqaalkeena oo meel dheer u gaaro. mahadsanidin. sidoo kale aan ku bilaabaa ama gudagalo qaybaha kale ee barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha ee Saakay waxa qayb ka ah barnaamijka horyaalka La Liga ee dalkaasi Spain oo Real Madrid markaasi iminkan ay sii xoojisatay haysiga kulamada ay markaasi ciyaarayso. sidoo kale haddaad aragto Real ayaa gool dhalisay waxa markaasi durbaba sanadkan dhigtada ku soo dhacaya Kylian Mbappe ayaa dhaliyay. haddii uu Mbappe dhaliyana waxa isla markiiba durbaba kugu soo dhacaya yaa ka caawiyay oo Arda Güler ayaa markaasi ay u shidan tahay oo markaa ka noqday kooxda Real Madrid ciyaaryahanka Luka Modric oo yariis ah.
Luka Modric ayaa markaasi ku ogaan jirnay inuu ciyaartooyda ka caawiyo goolasha iyo waliba waxyaabo fara badan ay markaasi ay kooxdu markaasi wax u tiri lahayd 10 sano ee la soo dhaafay laakiin Modric waa uu ka duqoobay kooxda waxa markaasi ku biiray kooxda AC Milan oo sanadkaada la soo dhaafay oo markaasi macsalaameeyay marka ardada kula waxa markaasi u muuqda ciyaaryahan inaba caadi ahayn waxa uu la fahmay ama uu Janis fiican ka helay tababare Xavi Alonso oo asna markaasi Janis fiican siiyay oo ciyaaryahankan u soo bandhigay fursado fara badan si uu markaasi u haysto sanadkii tagay ama xagaagii hore ee la soo dhaafay waxaad moodaa in Arda Güler oo ka niyad jabay inuu u safto kooxda Real Madrid taasi oo in badan la xiriirinayay kooxo fara badan oo ka tirsan ama ka dhisan Jarmal iyo waliba dalkaasi Ingiriiska ee Premier League iyo Bundesliga walow oo intaasi la isdahayay in wuxuu ku biiri doonaa kooxebel wuxuu ku biirayaa kooxebel suuqa xagaag markuu kala furmo iibsiga ciyaartooyda Arda Güler wuu ku daayay laakiin Xavi Alonso markuu u yimid waxa uu markaasi cishtay ciyaartooyda muhiimka u ahayd sida Rodrigo oo la isdahayay waa la fasaxaya waa uu cishayay sidoo kale waxa uu cishtay ninka la yiraahdo Arda Güler oo Janis fiican oo siiyay walow Rodrigo iminkan uusan fursado fara badan ku helin kooxda Real Madrid hadda xiligan oo ka ciyaaraya Xavi Alonso hoostiisa oo ka ciyaaraya tababar u yahay laakiin wali Xavi Alonso wuxuu leeyahay ciyaaryahanka waa ciyaaryahan jira waa ciyaaryahan quality u leh kooxdana meel weyn soo gaarsiiyay sanooyin fara badan oo hore ay ku tiigsanay haddana markaasi ay kooxdu wali ay ku tiigsan tahay oo hor u sii socon doona sidoo kale AC Milan iyo waliba Roma oo Realka markaasi u tartamaysa ayaa iyaduna isku dhageen oo sida Serie A dalkaasi Italy AC Milan ayaa badisay hal eber ku badisay Inter Milan way badisay iyaduna oo 2-1 ay ku badisay sidoo kale Juventus way badisay Napoli eber ayada iyo Como isla dhaafi waayeen sidoo kale waxa markaasi Realka laga badiyay Atlanta oo iyaduna hal eber looga badshay asxaabteyda qiimaha iyo qaayaha ee naga mudan waxa idin leeyahay sida iyo nabadgelyo haddii aad markaasi tahay asxaab ku xiran barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha aad hadda nala qabsatay fadlan haddii muuqaalkayga uu ku cajib geliyay ama markaasi aad la dhacday fadlan like-ta iyo commentiga ha iga ilaabin aad baad mahadsantahay asxaabteyda sidoo kale waxaan ka rajaynayaa in markaasi aad ii soo saartaan follow-ga iyo commentiga sii share gareeya si asxaab fara badan oo ku xiran muuqaalkeena ee u gaaraan page-kiina ku xiran intaan tan iyo dib ugu kulmi doonana waa saaxiibkiina Maxamed Abuukar Baari oo idin leh sida iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh fadlan waxaan ka codsanayaa 10,000 inay gaarsiisaan muuqaalkiina